halkan waxaanu shacbiga reer Soomaaliland ugu cadaynaynaa anagoo xildhibaano fara badan oo wadaniga halkan fadhiya hogaankii iyo kaadiradii xisbiguna way fadhiyaan xaaladda waa kii gudoomiyaha golaha wakiiladu hadlay hadalkiisa xaaladda waxa ku jirtay wax heshiis ah sidoo sheegay Dr. Saad wasiirka arrimaha dibadda wax heshiis ah oo Somaliland iyo Imaaraadku wada galeen ma dhicin haba yaraatee Soomaaliinta marxaata u dhacay hadaba maanta waxaana loo keenay waraaqdaas waa 4 page war bal hadeega oo af Soomaaliya meel allaaliye meel saxiix laba taraf ku yaalo laba qayboodna haba yaraatee ma jiro heshiisyada waynu naqaanaa waa intaasoo page dabadeetana atraafta saxiixda qaybta koowaad qaybta labaad saxiixya lagu dhigaa dabadeetana tasdiiq baa lagu sameeyaa heshiiska caalamiga waynu garanaynaa nimay horta kaas waa ka weey waxaan kaloo idin sheegayaa sharciyadii waa la baalmaray waxaanu maanta filaynay khudbadii labada gole waxa kaliya ee dastuurku tilmaamayo ee uu cadeeyay ee labada gole madaxweynuhu soo kaayay yeeri karaa sharciyan waa laba arrimood waa ansixinta gudoomiyaha maxkamadda sare iyo khudbad sanadeedka labadii markii aanu soo fadhiisanay halkii aanu ka filaynay in khudbad sanadeed dhacdo waxa la yidhi heshiis baa saxiixaysa meel allaaliye sharciyad loo maray heshiiska ah ilaa maba jiray xitaa hadduu jiri lahaa oo heshiis jiri lahaa sharciyad loo maray haba yaraatee iyaduna ma jirto markii madaxweynuhu hadalkii dhameeyeyna ee uu codsigii dhameeyeyna dee waxaanu isniin ka hadla oo ha laga doodo askar baa markiiba Salebaan soo geliyay gudoomiyaha guurtida military baa soo geliyay duub casa amarkiina isaga bixiyay rag xisaanad lebaano hayn xildhibaanaanu ahayn qarankaanu ka doodeynay wuxuu yidhi ka saara wixii wadaniga ka saara buu qaylinaya ka saara buu deetana quyana lagama saarine gowdana laga saar odaygan xuseen isaga dhulkaaba la dhigay salla calayh anigu intaal badal maanayno salla calayh markiiba horta waa la qaatay kastoo buriya laygu dhuftay qori dabada lay tuuray saddex xildhibaan inta la jiijido la garaacay ayaa la xiro gawaadhiga lagu ritay horta xaaladdu saasay ahayd fowday ahayd afduub bay ahayd sharciyo darray ahayd waxaan u sheegayaa ummadda reer Somaliland maanta sharciyadii golayaasha iyo sharciyadii golaha wakiilada iyo waa kan xuseen raggii la xidhay weeyay ee waliba dee salla calayh odayaasha arkaysan 8 jirka ee gowda laga saaray weeyay waxaan idin sheegaynaa waa nolo awood sheegtay sharcigii waa la baalmaray maanta fowda ka dhacday tutub bay ahayd wax allaaliye wax sharci oo nolol keenan ansixinayna haba yaraatee ma jirto tii hore dekaduna lafteeda wax badan baa ka soo noqday wixii la yiri waa la kordhinaya waxba kama jiraan iyadana nimay waxaan idin sheegayaa dee waxa ina qabsaday niman aan dalkan u naxayn bayna qabsaday dalkan meel kala lagu wadaa anigu intaas kaga baxaya wassalaamu calaykum